محمد عبد الله محمد فرماجو مدحوينها جمهورية الصومالية أيا maanta boqolaal shacab salaada ciidul fidriga waxa uu kula tukaday masaajidka isbahaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay tukashada ciidul fidriga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre xubno ka socday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir salaada ciid kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay halkaasi ayaa markii hore waxa uu hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maadaama maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga isla markaana waxa uu ku dheeraaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in dhanka amniga ay kala shaqeeyaan dawladda Soomaaliya محمد أحمد جبرتي oo horay u soo noqday musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha wadanka Soomaaliya iyo sidoo kale shacabkii dukashada salaada ciidul fidriga ka qayb galay oo la hadlay telefishinka Somali News ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid wanaagsan إلهنا waxaan weydiisanaynaa ciidan ciideeda inuu Ilaahay inuu gaarsiiyo barwaaqo iyo nicmo iyo khayr wa barakaati kullu aam wa antum bikhair Somali News aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa runtii barnaamijka wanaagsan oo ka qayb qaadanayo ciidul fidriga oo dadkii muslimiinta meesha isugu yimaadeen masaajidka weyn ee Soomaaliya isbahaysiga aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa xaleena Soomaaliya ha noolaato assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba yoroon eedeedan salaame hambalyo laha ciid wanaagsan sanadkan sanadii Ilaahay bashbash barwaaqni deersi meel walba isan roogda ummadda Soomaaliyeed hambalyo halkan aan joogo waa masaajidka isbahaysiga islaamka ee ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho waxa lagu oogay salaada ciidul fidriga waxaana ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waaberi telefishinka Somali News isbahaysiga islaamka Muqdisho